ambiyoy wajigii adudnaa ishu aanay qabanaynin waa isagaan ifaayay amaahi hadalkoo sirta ayar ii sheeg oo maxaad isticmaashay oglow ishu may qabataa aragtidu ma wacan tahay iftiin ma iga baxayaa haa maxaad isticmaashay waxaan isticmaalay kareemooyinka Asli Beauty Skin Care waliba ku darso shirkadda Asli Beauty Skin Care waxa ay bilowday in adeegyadeeda dukaamadu ay ku qaadan karaan qaab jumla ah si macaamiisha iyaguna ay uga sii iibsadaan dukaan walba ama dukaanka ugu dhow Asli Beauty Skin Care waa kareemooyin isugu jira nafaqo iyo fiitamiinis waxayna ka caawinayaan waxyeelada dadka isticmaala kiimikada waxa sidoo kale ka helaysaa make up foundation iyo nafaqo wajiga kaaga ilaalinaysa cadceeda qabowga iyo dabaysha oo loogu talagalay wajiyada Soomaalida xarumaha Muqdisho Hargeysa iyo Garowe waxa lagu soo kordhiyay qalab casri ah oo ay ka mid yihiin kaamirada wajiga lagu eego oo ku tusinaysa dhibaatooyinka wajiga ku dhaca deeqaluula oo ah mulkiilaha kambaniga Asli Beauty Skin Care waxa ay macaamiisheeda ku soo dhaweynaysaa gacmo furan iyo waliba qiimo ku qancinaya waxaad sidoo kale ka helaysaa shaambo iyo after shaambo saliid iyo nafaqo iswata xarumaha kambaniga Asli Beauty Skin Care waxa ay ku kala yaalaan Muqdisho isgoyska Soobe ka soo horjeedka wasaaradda arrimaha dibadda Hargeysana ka soo horjeedka astaanta xira awr daarta Imaaratul Baraka Nairobi waxay xarun ku leeyihiin wadada 12aad xarunta ganacsiga ee Madiina Mall xarunta weyn waxay ku taala magaalada London waxaana alabaha looga diraa dadka jooga Yurub America iyo Australia waxaana magaalada Dubai ay kaga hirgelisay xarun weyn oo ku taala suuqa Soomaalida Al Ras dhabarka dambe ee Hotel Jazeera haddii aad ganacsado tahay ka faa'iideyso fursadan ay ku siisay Asli Beauty Skin Care adigoo la xiriiraya ciwaanada shaashada kaaga muuqda Asli Beauty number 1 Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkii la magac baxay deeqaluul iyo dumarka oo aad si toos uga daawanaysaan TV-ga Royal xaruntiisa magaalada London barnaamijkan oo taxnaalo ah oo talaado kasta aad ka daawataan TV-ga Royal ee saacada UK 7 fiidnimo ee waqtiga UK oo awada sugeyseen maanta waxaan idin haynaa hadii Allah awood leh ogolaado waxyaalo xiiso badan mowduuceena maanta insha Allah taala wuxuu noqon doonaa waxaan si toos uga hadlaynaa dhibaatooyinka ku dhaca timaha khaasatan waxaan ka hadli doonaa hadii uu Allah idmo daawada loo yaqaan jilcisada ama relaxta qofba sida uu yaqaano daawo jilcisada oo boqolkiiba 70 aan dhihi karo dumarka Soomaaliyeed waxay u isticmaalaan si ay iskugu qurxiyaan ama timaheena aan u isticmaalno haday noqon lahayd inaan salon ku marsano ama guriyaha aan ku sameysano hadaba ma sha Allah maanta mowduuceena wuxuu noqon doonaa mowduuc aan ama topic aan ugu soo talagalnay inaan si toos ah aan isu tusno sida loo sameeyo timaha aad u marsan lahayd daawada loo yaqaan relaxta ama jilcisada sababtoo ah relaxta ee jilcisada waa chemical loogu talagalay tinta inay naturalkeeda ka bedesho oo sidii Ilaahay u sameeyay ka bedesho maadaama marka ay chemical ay tahay waa in si taxadar leh aad u isticmaashaa haday noqon lahayd salon haday noqon lahayd ina guriga ku samaysato marka waxaan ugu talagalnay maadaama inta aan wareegayay barnaamijka maanta waxaan ugu talagalnay intaan wareegayay daafaha caalamka sida East Africa oo kale haday noqon lahayd Kenya Soomaaliya Dubai waxaan tagay saloona qaarkood qaar waxaan arkay guriyo lagu samaysto marka waxaan arkay khaladaad fara badan oo sida loo isticmaalo jilcisada iyo dadkii gabdhiyo aad ugu badan inay marsadaan marka tirada marsanayso inta sixi karto oo sida loogu talagalay u marsan karto aad ay u yareed xaqiiqdii saloona qaar oo isku sheegaya professional oo kale waa arkay ayagana si khaldan u sameynaya marka waxaan ugu talagalnay marka inuu qofka ogaado gabadha Soomaaliyeed inay calal aqal ka ogaato hor u dhac yar ama ay ka haysato wax fikrad ah sababtoo ah si xaq waxay u leedahay marka salon tagtid ama meel timaha lagu qurxiyo aad tagtid ama jirka lagu sameeyo wixii lagu sameynayo inaad wax ka ogaatid sida lagu sameynayo inaad wax ka ogaatid hadii ay khalad tahayna inaad iska qabatid ayadana waa laga maarmaan marka insha Allah maanta barnaamijkeenu wuxuu noqon doonaa practical inaan si live ah toos ah aan isu tusno sida daawada jilcisada relaxta timaha lagu jilciyo loo marsado hadaa guriga joogtid iyo hadaa salon leedahayba
marka wax badan aan kala faa'iideysan doonaa mawduuceena koowaad wuxuu noqon doonaa daawo jilcisada iyo sida loo marsado oo ugu fudud ama ugu taxadarka badan mawduuca labaad oo asagana muhiim ah wuxuu noqon doonaa shaambooyada oo jiro kambaniyada kala duwan oo shaambooyada sameeyo shaambooyada siday u kala duwan yihiin iyo shaambada adiga kugu haboon sida ku ogaan lahayd iyo sida ay u kala fiican yihiin dabcan waxyaalo badan oo faa'iido ah halkan ka kala qaadan doonaa kadib markaan wax isfahamsiino waxaan furan doonaa sidii caadada ahayd qadadka taleefanada oo adinkana aan idinku soo dhaweynayno fikradihiina iyo su'aalihiina intaba marka insha Allah intuusan waqtiga naga dhicin waxaan guda gelaynaa hadal fara badan looma baahna waxaa loo baahan yahay si practical inaan wixii isu tusno aan pointiyadeena muhiimka ahna aan target gareyno marka waxaan guda gelaynaa insha Allah daawo jilcisadii oo aan iska soo qaatay daawadan tusaale ahaan aan soo qaatay ma rabo inaan ku mashquulno nooceeda iyo midda ugu fiican dabcan kiimiko waa kiimiko qofba waxbaa naasibo inkastoo ay kala sareeyaan kiimikadeeda ee midna strong tahay midna normal ay tahay usually anaga badanaa timaheena waxaan isticmaalnaa midda normalka ah sababtoo ah ma ahan timaha zaa'idka u adag sida afrikaanta kale ee u isticmaalaan marka waxaan iska soo qaadanay daawadan noocan intay noogu diyaarsan tahay waxaan kaloo soo aan haysanaa qalabkii loogu talagalay oo dhan oo halkan iyadana noogu diyaarsan daawadii iyo activatorkii lagu qasaayayna halkan ay ku diyaarsan yihiin marka waxaan guda gelaynaa si toos ah marka ugu horeyso waxaan gashanaynaa gloveski oo ah protection gacantaada maadaama ay kiimika tahay inaadan gacmahaaga ka ilaaliso sababtoo ah waxay ku keeni doontaa dhibaato badan haddii aad gacantaada kiimikada si toos ah oo ula gashid adigoon iska fududaysanaya ama iska sahashanaya ayaa waxaa dhici karto inaad dhaawac badan isa soo gaarsiisid waxaan gashanaynaa gloveski oo arkaysaan oo ah protection waxaa ku dadaalaysaa inaadan cidiyo dhaadheer lahayn sababtoo ah haddii aad cidiyo dhaadheer leedahay gloveska markaa gashatid intaa ku shaqaynaysid way kaa jeexmayaan cidiyaha kaa jeexayo kadibna daawadii kiimikada waxay kaa gelaysaa cidiyaha dan waxaa dhici karto cudurrada xun oo cidiyaha ku dhaco oo hadhow isbedeli kara ama infection keeni kara inay cidiyaha kaa galaan marka ku taxadar inaa cidiyaha iska jarto marka hore kadibna aad style protectionkii aad u samayso markaad gloveska gashato marka ugu horeyso waxaa halkaan noogu diyaarsan timihii oo aad arkaysaan dabcan kan aan iska leexino timihii oo aad arkaysaan sida aan u kala xirxiray waa intaadan daawada taabanin oo aadan qasin sababtoo haddaa qastid kadib aad shaqo gasho daawadii activate sameynaysaa way sii shaqaynaysaa minadiyadii loogu talagalay inay ku waxayso ka badanaa galay hadhow waqtigeeda wax kasta waqtigay leeyihiin marka waxaan sameyn doonaa gabadhii timihiisaana u kala xiraysaa afartan qaybood aad arkaysaan aad u kala xiraysaan waxaad diyaarsanaysaa waxa loo yaqaano fasaliin waa waxa ugu fudud ee tinta aad ku ilaalin karto waxaad diyaarsanaysaa fasaliin oo kale fasaliintii aad qaadaysaa waxaa marinaysaa qayb kasta oo jidkii aad u bixisay marka hore diyaarsaneed waxaa marinaysaa qayb kasta waxaa marinaysaa meeshaan hoose oo qoorta ah waxaa marinaysaa dhagaha oo halkaan ah waxaa marinaysaa oo ugu muhiimsan ayadana wejiga hore ilaa intaan dhan aad soo gaarsiinaysaa jidkii meeshii baxsanaana waxaa marinaysaa fasaliin timaha marka hore waa inay wasaq ahaadaan tintii oo aad xalay oo kale dhaqday oo nadiif ah oo shaambo ah ku dhaqday oo kale ma fiicna marka haddaad jilciso inaad marsato aad rabto waa inaad timaha marka hore wasaq ku daysaa wiig camal kadib aad marisaa wasaqdaas waxay kaa difaacaysaa kiimikadii toos u geli lahayd maqaarkaaga waxa aad marsanaysid waa chemical ma aha cream ma aha nafaqo marka waxay kaa celinaysaa maqaarkii toos ay u geli lahayd kiimikada ayay wasaqda kaa difaacaysaa marka waxay shaqo ka qabanaysaa kaliya timihii marka saas ayadana waa muhiim waxaa marsanaysaa
faasiliintii markaa mariso meel kasta oo jidka ah way ku diyaarsan tahay waxaa furaysaa markaasaa daawada afka ka furaysaa daawadiyaa furaysaa activatorka midka ay ku qoran tahay oo loogu talagalay in lagu qaso dabcan intaas waa wada garanaysaan sidaan qiyaasayo 80% inta daawada marsato labadaana isku qasaysaa kadib waxaa sameynaysaa qoriga qaadanaysaa si fiican ay isu dhexgelinaysaa ilaa ay isku meltigroobaan isku dhalaalaan ay sidii si fiican isu dhexgalaan waa ku diyaar galoofiskaadi waa kugu jira waa ku diyaar hawlo kale ma gelaysid shaqo kale ma gelaysid waxaad toos u gelaysaa dawadii inaad mariso adoonan ku xisaabtamaayo waa qastay kiimikadii lagu activate gareynayo waa ku jirtaa toos waxa u bilaabaysaa shaqadaada daawadii soo qaadaysaa marka waxaa ku bilaabaysaa sababta jidadka loogu bixiyo waxay tahay inaad daawada ku bilawdo halkaas dhinacaas adigoon toos maqaarka u marinaynin sababtoo ah maqaarka toos hada u marisid inta daqiiqadood oo dawada aad marinaysid oo dhan maqaarkaas dawada inay marsanaato marka waxaa marinaysaa tinta meeshay ka bilaabato waxaa kaloo ayadana muhiim ah hadaa jilciso hore u soo marsan jirtay dhowr bilood oo kale aan marsatay ee kugu jirto waxaa muhiim ah inaadan marinin afka hore halaha ay daawada ka baxday oo regrowga la dhaho timaha cusub oo soo baxay oo adag kaliya marinaysaa ama timihii ay ka baxday oo kale inta kale ay ku jirto uma dhaweynaysid daawada waxaa sameynaysaa intii tinta ay gaartay oo kale tinta kaliya marinaysaa maqaarkaaga daawada neba yaa lagaaga taabanay weligaa adigana ha iskaga taabanin marka ugu horeysa aa marinaysa kadib waxaa sameyn doontaa ayadana halkaana marin doontaa markaad saan u wada mariso waxaa kaloo marinaysaa halkaan waxaa kaloo marinaysaa halkaan sababta jidka loo bixiyo waaye waxaa kaloo marinaysaa halkaan waxaa marinaysaa hoos oo aadan maqaarkaaga taabsiinaynin marka intaas mariso kadib waxaa ku xijinaysaa waxaa bilaabaysaa qaybtii rasmiga ahayd ee marinta dawadii waxaa sameynaysaa waxaa u kala bixinaysaa qayb ma aha ayada dhan sidii shaambadii ina ugu dhaboqaysid saas u marinaysid qayb u bixinaysaa dawadii soo qaadaysaa saasa u marinaysaa ilaa inta ay ku eg tahay timaha oo dawadii ay ka baxday dabcan waa garanaysaa markii tinta ay soo baxdo marka quruxna waa rabnaa taxadarna waa ku dareynaa si aan maadaama aan dumar nahay Soomaaliyeed waxaan jecelnahay inaad timaheena noo quruxda badnaadaan sida ugu fiican ee ugu quruxda badan ee ugu taxadarka badanna aan wixii aan isu dhaawicin marka ayadana saas sameynaysaa waxaa marinaysaa kaliya halihii ee dawada ka baxday kaliya kuma daraysid meeshii kale tinta ma gaarsiinaysid way kaa dhimanaysaa tinta marka saas ku wadaysaa qaybta kale saas ugu xijinaysaa ugu dambeyntii markii aad waxa dhan samayso waxaa marinaysaa afkaan hore sababtoo afka hore markasta timaha way ka jilicsan yihiin kuma bilaabaysid markaa marinaysidna waa inaa labada cabir isku waqti samaysaa marka dabcan timaha markaa marisid oo dhamaysid waxaa sameynaysaa oo ilaa meesha ugu dambeeya aad gaarsiisid haddana waa soo bilaabaysaa tintii oo dhan qayb haddana usoo bixinaysaa waa ku shanlaynaysaa shanla bilaabaysaa shanla yar shanlada marka adoon maqaarka gaarsiinaynin waxaa la rabaa in tintii lagu dhexgeliyo saasoo kale khaladaadka ugu badan aan arkay waa timihii inta sidii shaambadii oo kale nafaqa loo mariyay kiimikadii jilcisadii loo mariyay la isku xiray naagti iska baxdayba waxa ku marsan ma aha shaambo ma aha nafaqo waa kiimikaalka wuxuu damage gareyn karaa brainkaaga maskaxdaada maqaarkaaga u damage gareyn karaa meeshii tinta ka soo bixaysay ilaahay ugu talagalay dhan inay gubato oo timo dambe ku soo bixinay aad dhici karto timihii dhan inay dhintaan oo nafta ka baxdo kiitikaalka waxa la dhaho tinta lafteeda hoose oo gunta ah laftaas inay dhimataa dhici karto soo tin kasta ku soo baxda saas ay u kala jajabto
haddaadan taxadar u marsanin ama aadan markii lagu marinayo aadan feejignaanin oodan ogaanin markaa saas u wada shanlayso tintii oo dhan ku shanlaynaysaa mid kasto intii aa marisay waa daqiiqado inta haddana aa inta ka bilowdid ilaa inta aa geynaysid oo aa ku shanlaynaysidna waa daqiiqado kale intaas marka way ku xisaabsan tahay waa inaad ku dartaa markii shanladii la dhameeyo kadib ma aha haddana inaan dhahno minadii kale aan sugaynaa sababtoo ah haddana haddii kale waqtigii wuxuu qaadanayaa waqti kale marka waxaan kaloo sugaysaa waxaa dhici karto markaa shanlada dhammaysid kadib ugu badnaan 10 daqiiqo inaad sugtid sababtoo ah intaa marinaysay daqiiqada ku jiray intaa shanlaynaysayna daqiiqada kale ku jiray marka intaasoo la isku daray in kale oo sii tiro badan haddaad sugtid waxaa dhici karto inay tintii damage garowdo marka waxaa sugaysaa qofka inuu cuncun fara badan uu dareemo ay gubato intaasoo dhan qofku waa weydiinaysaa waxaa leedahay ma ku cuncunaysaa waxaa leedahay ma ku gubanaysaa intaasoo dhan calaamadaha lagu garta inay tintii qabatay iyo dabcan markaa shanlada gelisid waa dareemaysaa tintii way soo raacaysaa inay dawada qabatay marka waxaa kaloo sameynaysaa qorigaas asaas ku leedahay maqaarkaaga hoose never weligaa shanla yaan la taabsiinin adigana ha iska taabsiinin markaa dawada marsanaysa sababtoo ah maqaarkii oo kiimika marsan oo kiimika leh haddaa shanladaa saas ku tiraahdid indhihii dhanaa way jilicsan tahay kiimika marsan maqaarkaagii wuu duleelinayaa shanlada waa afkeeda wuu dhuuban yahay marka taxadarkeedana lahaw dabca adiga qofka keligiis maba marsan karaba in dawada loo mariyo maahane asaga ma marsan karo markii lagu marinayana adiga ina wax ka ogtahay hadii asaaloon tageysin ina wax ka ogtahay hadaa adiga dad u marinaysin ina intaba ina adiga wax ka ogtahay marka faa'iido badan ku jirto qurux badan ku jirto hadii aad marsatid waxba kuma damage gareynaya sida loogu talagalay hadaa u sameysid taxadarkeedii iyo waxeedii sida loogu talagalay sharciyadeeda hadaa martid wax ka halaabaya ma lahan insha Allah ta'ala dumarka waa isku wada dan waxaan kaloo rabnaa markaa dawadii 10 daqiiqo aad sugtid waa ka dhaqaysaa oo ay qabatay oo aa ogaatay inay shanladii raacayso waa qabanaysaa waxay wadataa inta badan waxay wadataa shaambadaas afkaa ka goynaysaa waxa ugu muhiimsan oo aan arkay waxay tahay qaladaadka ugu waaweyn oo aan adkeysan waayo waxay tahay waxaan la sameeynayo waa kiimiko gabadha lagu sameeynayo waa gabar walaashay ah khalad badan oo waxaan arkay saaloon inta daawo jircisa loo mariyay gabadhii marka ugu horeysa la iska baxayba qofkii oo kiimikada u marsan tahay qofkii dumar ahaayay u sameynaysay waaba iska baxdayba meelahaas ay ku sheeka doonaa ama kafee doonatay ama shaahi doonatay ama qol kale iska gashay waa mamnuuc ayada marka ugu horeyso waxa ku marsan waa chemical ma ka aadi kartid qofka meel dheer markasta waa ina step by step waxa dhici karto inuu allergy ku yahay markiiba uu qofkii naqaska u dhibo barar uu galo wixii la marinayo waa maskaxdii taxadar badan u baahan tahay ayadana waxaan dhihi lahaa inuu soo qofka meel dheer ka aadin marka dawada marisid kadib ama aadan shaqo kala gelin ama aadan telefoon gelin oo mashquul kale aadan gelin maskaxda way yartaa qofka bini'aadamka laba meel uma qaybsan karto waa isla soconaa waxaan kaloo dhihi lahaa shaambada marka afka ka jaraysaa shaambada waxaa loogu talagalay ugu yaraan 6 ilaa 7 goor ina ayada kaligeed ku dhaqdid oo u yaryaraysid marka ku shubtid shaambadii marka hore waxaa dhaqaysaa horta kiimikadii ka dhaqaysaa tinta markay sideedii u noqoto oo dawadii dhan aad ka dhaqdid kadib shaambada bilaabaysaa no inuu iyadoo kiimikadii leh shaambadii aad ka dawageysid wixii dhan dhuq isku noqdaan isku xismaan wax dhaqmay iyo wax kale aan la kala garanaynin ma fiicna ayadana taxadarkeeda lahaada waliba waxaan arkay caruur yar oo guryaha loogu mariyo ayada laftigeeda muhiim waaye ina aad u barataan barnaamijka maanta waxaan u soo xulay waxay tahay waxyaalaha aan isdhihi karo dhibaata ka imaan karto aniga laftigeyga aan dareemi karo aan rabaa ina ila wadaagtaan hadii ilaahay yiraahdo marka waxaan sameyn doonaa shaambada marka ka dhaqdid waxa qabsanaysa shaambada qabanaysa marka kiimikada ka dhaqdid shaambada ku shubaysaa si fiican marka ugu isaajeynaysaa meelo waxaa jiro la iloobo xitaa qofka ku marinayo adiga loo mariyay oo jiifo waa inaad dareentaa meesha aan gacanta taabanay meesha kale
waa inaad dareentaa dhagaha hoostooda badanaa waa la iloobaa meeshaan dhagaha hoostooda meeshaan oo kale zaa'id loo dhaqaa geesahan oo kale waa la iloobaa qoortaan oo kale way ku yar tahay because saanu qofka u jeefaa ama uu fooraraa gacantii inay gaarto way adagtaa marka waa inaad adiga xitaa la socotaa meelaha qofka ay u marsan tahay sheegaya in gacantii ay gaartay meel kasta waa inaad ogaataa markaad ku masaajeynaysid oo dhaqaysidna waa inaadan cidiyahaaga aadan ku xoqin farahan afka hore aad ku masaajeynaysaa ma aha maqaarkii oo kiimika marsan tahay inaa cidiyahaaga aad la gashid waxaa dhaawacaysaa maqaarkii qofkii baniaadamka ahaa waxaa u shaqaynaysid waa qof baniaadam ah marka waa inaa iyadana aad maqaarkii aadan cidiyaha la gelin ood aad ku masaajeysaa gacantii kadib shaambadaas waxaa ku dhaqaysaa ugu yaraan 5 ilaa 6 goor aad ku dhaqaysaa markaa shaambada ka raacsiisid dabcan conditionkeedii wadataa conditionkeedaasaa marinaysaa wax yaroo shanla ah oo been ah saas ku leedahay ku masaajeynaysaa waa ka dhaqaysaa timahaagi waa ku diyaar waxaa marsanaysaa saliidi markaas ku diyaarsaneed ma aha in saliid gooni ah iyo wax gooni ah dadka aan ku amreyna ma ahan laakiin guud ahaan wixii qofka uu awoodi karo saliid ahaan oo haystay saliid yar ah marsanaysaa waxaad sameynaysaa waxaa ku qalajinaysaa blow dry hadaa heli kartid hadaad heli karinna shukumaanka oo kale ku qalajisanaysaa timihii adoon isdhex gelinayn oo gadaal u qalajinayo waxaan kaloo ka tagay muhiim ah biyaha lagu dhaqaayo lagaaga dhaqaayo timaha waa inay qabow iyo kuleel u dhaxeeyaan kuleelna ahaanin qabowna ahaanin sababtoo timihii meeshii maqaarka kiimika hadii biyo kulul mariyo waxaa dhaawacmi karo maqaarkaagi hoose marka waxaan sameynaynaa biyihii waa inay qabow iyo kuleel waliba kuleel xiga ay ahaadaan si ay waxan si fiican ugu dhaqaan waxaan kaloo ayadana sameyn doonaa markii timihii aad samaysato shukumaan yar ku duubanaysaa kadib markii wax yar qalalaan tintiyo qoyan hal shanlayn sababtoo ah waa sensitive ma ku fiicna timihii waxaa sameynaysaa waa shanlaynaysaa markay qalalaan sidii stylekii adiga ugu tala gashay hadaa roodin rabtidna roodin ku duubo hadaa duuduubanaysidna waa duuduuban kartaa marka intaas waxaa noogu eg qaabkii loo marsanayay daawada jilcisada oo ahayd topic ama casharkii ugu horeeyay mawduucii ugu horeeyay ee maanta aan kusoo qaadanaynay barnaamijkeena deeqaluul iyo dumarka waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iideysateen oo aad ay igu soo duceyn doontaan ana idin duceyn doono insha Allah taala daawada jilcisadii qaybteeda intaasaan kusoo dhaafaynaa waxaan rabnaa hadda marka inaan wax yar oo hordhac ah aan galno shaambooyada topic labaad oo ahaa sida shaambooyada adduunka jiray oo kala duwan yihiin iyo sida ku ogaan lahayd shaambada ugu fiican waa mawduuc muhiim ayadana shaambada waxaa lagu dhaqdaa week kasta timaha lagu nadiifsadaa waa khasab inaa ogaatid shaambada kugu haboon iyo midda ugu fiican waa dadka heli karo khasab ma aha dadka heli karin dadka heli karo meesha waxaan ku haynaa shaambooyo laba nooc ah oo kala duwan shaamboogan anaga ma lihin saas darteed waa waxaan u qarinay brand name-ka ama company-ga sameeyay waxaan rabnaa tusaale ahaan inaan kasoo qaadano shaambadan waxaa iskale company-ga Asli Pure Care oo aad wada garanaysaan ayada laftigeeda waa company official ah ma aha in la qariyo oo anigiyaaba sharxayo oo company-ga iskale oo qayb ka ah marka waxaan rabnaa inaan ogaano shaambada ugu haboon shaambooyada badanaa waxaa laga sameeyaa waxaa ku jiro maadooyinka ku jiro oo laga sameeyay kamid ah maadada la dhaho sulfate-ka markay ugu fududahay oo aan is-iraado waxaan usoo qaban karaa fasiraad waa cusbo qayb kamid ah cusbada marka waxay sameysaa kordhisaa populiska waxa la dhaho xumbada way xumbaysiisaa cusbada xumbo badan ay sameysaa saas darteeda shaambooyada timaha lagu dhaqdo badanaa lagu daraa cusbada loogu daraa sulfate-ka cusbadaas oo ayadana damage gareysa dadka badanaa adduunka wax fahamsan shaambada ay ku jirto sulfate-ka ma isticmaalaan sababtoo ah waxay dhaawacaysaa tintaada cuticalka lafta gudaha tinta iyo maqaarka hoose waxay ka dhigaysaa dry adayg fara badan marka waa arki karnaa shaambadii oo aan dhihi karno siday u xumbaynayso
tusaale ahaan aan dhihi karno xumbada waxaa la dhihi karaa markaa aragto qayaanada loogu talagalay waxay tahay shaambada markaa gacanta ku shubato oo timaha aad ku dhaqayso xumbo fara badan ay ku siinaysaa waxaa adiga marka iska dhaadhicinaysaa u malaynaysaa inay timihii dhaqmayaan marka xumbadaas faraha badan waxay keenaysaa dhaawac fara badan hadda arkaysaan shaambadii waxay yeelatay intii yareed iyo xumbadeeda isma laha marka waxaa ku jiro dadka garan karo way garanayaan shaambada marka moor ay aad u xumbayso waxaa ku jiro inaa iska dhaadhiciso shaambadii inay wax ku dhaqayso timihii laakiin arrinka saas way ka duwan tahay shaambooyada wadamadan horumaray oo kale way garanayaan qof kasta iyo shaambada ku haboon iyo shaambada timaha ku fiican waxaa kamid ah shaambada hadda shaambada Asli Pure Care waxaa dadka isticmaalo way garanayaan waxaa ku jira sulfate free cusbo kuma jirto waxaa ku jiro anti color fade oo color haduu ku marsan yahay ama xinno ku marsan yahay kaama dhaqayso way ilaalinaysaa li'anna waxa wax dhaqo waa cusbadi waxaa kale ku jiro keratin-ka waa nafaqo kamid ah nafaqooyinka ilaahay timaha maqaarkeena uu sameeyay jirkeena keratin iyo collagen la dhahaa marka keratinkaas waa tinta wuxuu ka ilaalinayaa maqaarka dryga qaleylka faraha badan jajabka tinta inay kala jabto waa ilaahay natural uu noogu sameeyay anaga maqaarkeena marka keratinkan wuxuu ilaalinayaa keratinkii jirkaaga ku jiray oo maqaarkaaga iyo ilaahay uu ku dhaliyay uu ku ilaalinayaa keratin ayada xitaa arki kartaan shaambooyo badan oo waxa jira ay ku qoran tahay keratin waana ka qaalisan yihiin dabcan waa garanaysaa keratinka waa nafaqo muhiim u ah timaha iyo maqaarka ala kulli xaal timaha dadka wax garto oo wax aqriyo Soomaalida 80% wax bay aqrisaa way garanayaan shaambada sulfate haday ku jirto waa anti color fade haday tahay waxa kale oo kamid ah inay tahay tinta dry-gana inay u fiican tahay sababtoo ah tinta marka dhaqdid maqaarkii hoose haduu qallayl noqdo tintii way kala maqaarkii hoose uu dildilaacayaa tintii soo baxdaba dhaxday ka jabaysaa sida aan cabasho badan u arkay dumarka Soomaaliyeed ee ila soo xiriiray tintii aga jabtay waxa marsan jiray daawo oo jilciso ah waa iska daayay muddo dheer hadda tintii lafti ka soo siibata way iga soo go'daa marka ayadana laftigeedu waxay noqonaysaa waxyaalaha ay dumarka aad uga cawdaan dabcan daawo hadaa marsatid waxa u baahan tahay taxadar fara badan shaamba aana ku jirin sulfate oo kale nafaqadeeda oo kale inay nafaqadeeda ay after shampoo ina isticmaashid badana markasto waa ina after shaambada isticmaashid marka waxaan rabaa ina marka shaambooyadii iyo wixii Asli Pure oo kale hadda anaga hubno waxaan ku jiro sulfate free anti color fade colorkay ku ilaalinaysaa iyo keratin nafaqo badan oo timaha ilaalinayso waxaan rabaa in yar ina ila daawataan naxayisiinta Asli Pure Care wax yar awada daawan soo laabanayna ambiyoy wajigii adudnaa ishu aanay qabanaynin waa isagaan ifaayay amaahi hadalkoo sirta ayar ii sheeg oo maxaad isticmaashay oglow ishu may qabataa aragtidu ma wacan tahay iftiin ma iga baxayaa haa maxaad isticmaashay waxaan isticmaalay kareemooyinka Asli Pure Skin Care waliba ku darso shirkadda Asli Pure Skin Care waxa ay bilowday in adeegyadeeda dukaamadu ay ku qaadan karaan qaab jumla ah si macaamiisha iyaguna ay uga sii iibsadaan dukaan walba ama dukaanka ugu dhow Asli Pure Skin Care waa kareemooyin isugu jira nafaqo iyo vitamins waxayna ka caawinayaan waxyeelada dadka isticmaala kiimikada waxa sidoo kale ka helaysaa make up foundation iyo nafaqo wajiga kaaga ilaalinaysa cadceeda qabowga iyo dabaysha oo loogu talagalay wajiyada Soomaalida xarumaha Muqdisho Hargeysa iyo Garowe waxa lagu soo kordhiyay qalab casri ah oo ay kamid yihiin kaamirada wajiga lagu eego oo ku tusinaysa dhibaatooyinka wajiga ku dhaca deeqaluula oo ah mulkiilaha kambaniga Asli Pure Skin Care waxa ay macaamiisheeda ku soo dhaweynaysaa gacmo furan iyo waliba qiimo ku qancinaya waxaad sidoo kale ka helaysaa shaambo iyo after shaambo saliid iyo nafaqo iswata xarumaha kambaniga Asli Pure Skin Care waxa ay ku kala yaalaan Muqdisho isgoyska Soobe ka soo horjeedka wasaaradda arrimaha dibadda Hargeysana ka soo horjeedka astaanta Xira Awr daarta Cimaaratul Baraka
nayrobina waxay xarun ku leeyihiin wadada 12aad xarunta ganacsiga ee Madiina Mall. xarunta weyn waxay ku taala magaalada London waxaana alaabaha looga diraa dadka jooga Yurub, America iyo Australia. waxaana magaalada Dubai ay kaga hirgelisay xarun weyn oo ku taala suuqa Soomaalida Al Ras dhabarka dambe ee Hotel Jazeera. haddii aad ganacsado tahay ka faa'iideyso fursadan ay ku siisay Asli Beauty Skin Care adigoo la xiriiraya ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Asli Beauty number 1. waxaan filayaa in yar daawateen xayeysiintii Asli Pure Care marka waxaan rabnaa inaan si toos ah aan isugu soo bandhigno wixii faa'iido noo leh dumarkeena dhamaan dumarka waa isku danta adiga sida adiga quruxda u jeceshahay aniga u jecelahay gabar kasta u jeceshahay quruxda laakiin inay meel qaldan naga gelin marka waqtigoona haya darteed waxaan sameyn doonaa insha Allah qadadka taleefanada waa buuxaan sida la ii sheegayo iyadana fursada ay siin doonaa wixii waa wadaageena barnaamijkeena ku soo dhawaada waxaan rabnaa inaan taleefanadaas kuwa ugu muhiimsan aan ka jawaabno intay noo gaarto kadib qadadka taleefanada. هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا الكسر دو برنامج كم عاجي إيماش هكسو هالليسو. إسكا جابي أظن ما هتسن تي في إسكا جابي ها وما هتسن كسر دو وفي عنها معاني كسر دو برنامج كم حاول قيب قاضن لهين. وحاول قاضن قرحي كلام هذا طبعا أحيسين فيه وكله أنا وكله هذا سويدا وكله دكان مهمنا كريمة هذا نفقوي وكله كريمة وكله بطر وكله منو يعلن محل سمين كرام وما هتصدق مقعد يقصوا علي معناته مقعد سعدية أو سويدن سعدية ألابته ولا شيء مركي هوري ألابته ولا صدر سويدن لكن ميالان طبعا ميل كستو يوروب حرمته هذا وين حكوتها على لندن تدكوين على صو حريران ولا درا لكن برانجي يحرمه ولي كمفرن يوروب صوبته أمانت هدي لقو صدره بريتولي واهلي ساعة مساد ضمبه مركا ما اسكو مشغولين إنا حرمه كفرنو إن يوروب لكن سويدن ميلها ugu badan ee aan u dirnay customer-ka ay kamid tahay kadana soo wacdin insha Allah future-ka waa lagu soo diri karaa marka ana waxa aan rabo dhan marka la igu soo diro inta aan rabo dhan kareemada aan rabo dhan waxa aan ku wada hadlayna telephone waaye insha Allah waan soo wacaysaa kadib waa lagu sharxayaa wixii u baahan tahay consultation waa wada hadlayna waa lagu soo diraa هاي تلفونك حيسين ها تلفونك حيسين تكو قرن قرن إيسا تلفونك حيسين تكو قرن أو UK ها واحد كمان قرحي تماها أو كلر كمسيه هاي مالا جلعسة مالا مركرة تماها كلر كمرسيه جلعسة ولا مركرة لكن وإنه وقت أول حيسا يديو هذا جلعسة لمريه هذا كيميكال كلام لا قد بجين كرو وحي واتماهاجي وقركاجي وقياسي كرتا لبا كيميكو kala duwan hal mar mal iskaga geen karo laakiin waxay u baahan tahay taxadar badan inaad jilcisana marisid colorna marisid timahaaga ilaalisid shaambo fiican ku dhaqdid biyaha kulka ilaalisid dhaqida badan oo shaambada ku dhaqaysid oo fara badan ka ilaalisid marka dhaqdid aqalajisid shaambada cusbada ka yarta isu ku jirin oo kale inaad isticmaashid laakiin waa marsan kartaa marsasho ahaan وما هتصنتها سعدية ونقصوا عيسى سويدن إنه وحن قلنا قدك كحيقو هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم السلام ولا علينا واحد لا ربا ولا شيء وقدك توصل أبو جرتا مقعاقة يماشى نقصوا عيسى نوشيك مركوري اسمهان انت جوكتا لندن نقصها لندن اسمهان from London هاي كسو دو حبيبتي وقدك توصل أبو جرتا محان ويدين لهاد waxaan weydiin lahaa walaalay horta aad ba ugu mahadsan tahay barnaamijka aad u fiican weeye waxaan rabaa inaan wax yar noo faahfaahisid dry skin-ka aan jeclaan lahaa ismahan from London oo xabiibti marka hore topic maanta aan ka hadlayna dryga ma fahmin qaybta timaha ma ka hadlaysaa dryga ha qaybta timaha dryga aan timahana
maaragtay ii sheeg ma baxayaan timaha timahana waa dry. Okay, waxaa marka iyadana casharkeeda waa geli doonaa dib. timaha dryga badan waxa keeno cimilada korkiyaaba qaleyl ah wadamadan Yurub hadaa aragteen. marka wajiga waa qaleyl, timihii waa qaleyl, korkii waa qaleyl. marka timahana qaleylka iyadana qayb ay ka tahay. waxyaalaha looga hortago kale hadda waxaan dhahay shaambada muhiim waaye. shaambada tinta qaleylka ma aha, iskaalbaha maqaarka hoose waaye waxa qaleylka ah. shaambada ay ku dhaqaysid haday cusbo badan leedahay waxay ka qaadaysaa markasta labeentii maqaarka hoose. tinta waxay bilaabaysaa inay salki ka soo siibanto, meel abaar oo kale noqonaysaa. ayadana laftigeedu shaambada ay ku dhaqaysidna waa ku muhiim. intaadan dhaqin ka horna hadii qaleyl badan ay qabtid saliida olive oil ko kale inta 4 qaybood tinta ka dhigtid waa ku misaajeyn kartaa. in yar kuma yar ama bac yar kula huuri kadib ka dhaq hadhow. marka iyada laftigeeda shaambada after shaambowga saliida aad marsanaysid waxa soo dhan ina u fiirisid wixii maqaarka u fiican waa muhiim. kadib marka horena aad saliid ku radisid. ismahan from London waxaan fiirinaynaa qadka ku xiga. hello salaam calaykum. hello salaam calaykum. qadadka taleefanada way isku jaam garoobeen sida la leeyahay. marka wax yar intii la kala xalinayo waxaan u soo laabanaynaa topic-keeni ahaa. hello salaam calaykum. السلام عليكم. وعليكم السلام. walaal ku soo dhawow xagee ka soo wacaysaa magacaaga. walaal magacayga umu muxba lahaa. umu muxba oo joogto London. umu muxba oo joogto London. hay ku soo dhawow barnaamijka. walaal waxaan rabay inaan ku weydiiyo macnaha meesha in kala xiriiri karo iyo maaragtay direct numberkiina because YouTube ka numberada aan ka arkay oo adiga deeqlul maaragtay ma ii baxaya ma ii shaqeynayaan. iyo waxaan kaloo rabay inaan ku weydiiyo macnaha orderka ma hadii qofku dalbado kale ma uu helaa by post ma ugu soo diraysi deliver ma uu keenaysi. umu muxba oo joogta London waxaa samaysaa after program markuu ka baxa kadib xayisiinta soo gasho. xayisiintaas YouTube-ka ku jirta hadda ka qoran kartaa. waxaa ka helaysaa telephone numberka oo 075 ka ah oo London. telefono badan ku qoran midka oo UK kaas private keeno waaye kaasa ka order gareysan kartaa. lagugu sharxi karaa waxa u baahan tahay sida lagugu soo diraa insha Allah. umu muxba oo joogta haye qadka ku xigo aan galeynaa. hello salaam calaykum. hello salaam calaykum. ku soo dhawow wala codkaaga adoo kor u qaadayo waqtiga aan ka faa'iideysan. عليكم السلام ورحمة الله وحواكين لندن وسويدن جوجتا. حواكين from Sweden حبيبتي soo dhawow. أباي دوب ترى كل ما شاء الله ما شاء الله أباي معاني وحان ربي. ها ودوهي أباي دوب ترى ما كرم يفضل ما شاء الله غير الله بسيط. لكن تمها ما عرفتي ناقص أول تلعبها بتشتري العصا دي وبالله مثلا ناقص أول العصا ما مستكرتها ويبتشجع يعني. حواكين Sweden waa su'aal muhiim ah oo aan ka tagnay khayr Allah ku siiyo. barnaamijka saas uu muhiim ku yahay. badan baa isoo dirta kareemo ma sha Allah waa isla xiriiri jirna khayr Allah ku siiyo. waa mahadsantahay macaan badan jazaakallahu khayran adigana. حواكين oo su'aasha ila weydiisay waxaan filayaa in aad uga wada faa'iideysan karno. gabadha markay uurka leedahay hooyada ma fiicna horta in jilcisada la marsado siiba bilaha ugu horeeyo oo ilmaha ay yar yihiin. wax dhibaato ah oo keeni kara ma lahan. kiimikada halka la mariyo ma aha in intay baxdo ilmihii u tageysay ay wax yeelayso ma ahan. waxaa la diidayaa hormoneski oo ilmihii busy ku ah oo shaqeynayo naasihii caanihii u diyaarinayo oo mashquul ah in la interrupt gareeyo ama la qaso oo laga leexiyo la diidayaa hormoneskaas. laakiin wax dhibaato ah ma laha. hadday timihii zaid u jajabayaan oo kale 7 bilood oo kale markaa gaartid si fiican oo taxadar leh hadii lagu mariyo oo sida hadda aan sharxay kadibna aan iska dhaqdo waxba dhibaato ah ma laha insha Allah. حواكين Sweden su'aal muhiim ah soo weydiisay wax badan aan ka faa'iideysanay. waxaan u guda galeynaa. hello salaam calaykum. qadka telefoonka dadka fursadaan siinayna insha Allah iyaga laftigooda. hello salaam calaykum.
qadkaas wuu ka go-ay waa usoo laabaneynaa qadadka taleefanada. halo asalaamu calaykum. qadka iyadoo qadkii taleefonka a ku hadlaysa haddaad tv-ga iska fiirsatid wixii dhan waa isku dhacayaan, qadkii uu kaa go-ayaa, marka si aan uga faa'iidaysano waqtigeena. halo asalaamu calaykum, kusoo dhawo walaalo. Waalaikum salaam abay, ma fiicantahay? fiican xabiibti, magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysid? abay magacayga Sara la yiraahdo, waxaan kasoo hadlaa Denmark. iya Sahra, ha intee kasoo hadlaysaa? Denmark. Denmark. oh Sahra Denmark xabiibti, kusoo dhawow. abay waxaan rabaa macaanto madaxayga waxaan ku arkay agool waxa la dhaho qasharada. ها صح. marka muddo dheerna waan isku arki jiray. muddo fog shaambo iyo wax inaasiban waan waay. waa gartay. Zahra oo Denmark ka soo wacayso shaambooyada hadda agoolka horta waxyaalaha agoolka waxaa keeno waa arkaysaa agoolka tinta waxay ku reebtaa wax cadcad oo filiki ah, qallaylna way ka dhigtaa. marka qallaylkaas faraha badan Sahra waxaa dhici karto inuu qallaylkii ka batay oo shaambadii cusbada lahayd ku dhaqanaysay iyo saliid la'aantii inay isu kaashatay oo maqaarkii uu isu bedelay agool uu wuxuu bixiyay wax cadcad timi inay ka daataan. marka waxaas cadcad hadii uu zaid kugu yahay oo agool oo sidii nabra camal uu meeshii u burburtay, dhakhtarka kale hal mar hadaa u tagtid shaambo oo ay ku jirto antibacteria oo sida daawo kala ah oo markasta aadan isticmaali karin oo waxaas agoolka ka daadiso aa u tagaysaa. markay ka dhaqanto waxaas oo maqaarkii uu nadiif noqdo kadib waxaa ku dadaalaysaa inaad raadsatid shaambo sax ah oo aanan sulfate ku jirin oo aanan kiimika oo ku jirin anti colorka oo kale. hadda waxyaalaha lagu ilaaliyo keratin ku jirto, keratinka haddaan sharxayni Zahra maqaarku ilaaliyaa, dryga faraha badan oo ka ilaaliyaa uu ku waxaynaya. marka iyo markii aad uu ku caafimaado dawada isticmaashid kadib waxaa samayn kartaa olive oilka wax yar intaa qandac yar ka dhigtid kululeysid isagoo wax yar kulayl aan badnayn leh oo yara qandaca maqaarka qaada intaa qaadatid saas ugu shub kadib tinta ku misaaje calal aqal weegi hal mar sameey maadaama qalayl badan uu yahay. laakiin hadda asagoo agool leh ma ka dabageyn kartid. agoolka haduu yahay wax yar oo iska normal ah oo qalayl oo kale problem male, laakiin haduu zaid yahay dhakhtarka la kaasho kadib ku soo laabo. Zahra Denmark waxaan filayaa inaad hordhac yar ka heshay inkastoo barnaamijka waqti badan u baahan yahay. waxaan gelaynaa qadka ku xiga. halo asalaamu calaykum. halo asalaamu calaykum. عليكم السلام. walaal ku soo dhawow barnaamijka magacaaga meesha naga soo wacaysid. abay magacayga waxa la yiraahdaa telefishinka iska xiraaya. haye magacayga waxa la yiraahdaa Xaliimo. Xaliimo ku soo dhawow xagee joogtaa? waxaa London oo idin taagan la iyo waxaan ka soo waxaa London. waxaan rabay aniga barnaamijka dhaxdan kala qabsaday waxaan rabay inaan wax ka weydiiyo shaambada cusbada ku jirto aan ku soo gaaraydo si dhamaanayso. shaambada cusbada ku jirto Xaliimo hore u sharaxnay barnaamijka maadaama waqtiga gabagaba yahay YouTube-ka la soo gelinayaa toosa kala socon kartaa. xitaa khasab ma aha qofka in waxa hadda la sheegayo dhan inuu madaxa wada gashto. waxa la gelin doonaa YouTube-ka, waxaan gelinaynaa Facebook-eena, waxaasoo dhan tartiib marba aad ugu soo ceshan kartaa u fahmi kartaa. laakiin shaambooyada inay midna cusbo ku jirto midna aysan cusbo ku jirin oo nafaqo ay ku jirto sulfate free ay tahay aan sharxaynay sida hadda shaambooyada kale oo inta aan ku tijaabinay sida ay midda cusbada ku jirto u xumbaynaysa hadiiba markii in yar lagu shubo ay xumbo badan ay timihii ay gelinayso. saasna loo maleynayo in ganacsi ahaan in timihii ay dhaqmayaan oo wasaqdi ka dhaqmayso. marka Xaliimo YouTube-ka haddaad dib uga daawatid mawduucyadii dhan oo sharaxaad leh oo wixii dhan xagaa ka helaysaa. wixii su'aalo aan hadda private ahaan noogu soo weydiiso waa kuu soo jawaabi doonaa insha Allah. halo asalaamu calaykum. deeqo anaa kugu soo noqday. soo dhawow. deeqay haa walaala. waa iga go'ay markii anaa kugu soo laabtay walaalay waxa waaye madaxayga wax nabra ah ma laha ma fahmi. adigana ii sheeg yaa waaye. gabadha hadda Sara oo Denmark la soo hadlaysa. ها Zahra Denmark waa fahmay.
فحبيبتي وحنا برا ملها ملها كودي ونسكت لليهاي هذا كار وحال تجي فرمشيها وحال يسوسي دواء دليل كوجي تعاجر أو بيئة وأن كل دقيق وحلا كم دريمي هير أن شولدي أن كل دقيق وحلا كم دريمي وحال دعير أن شولدي بحوسي عندها قشرة أقولك waxaa samaysaa Sahra haddaan kuu sheegay inaan maqlaysa in kala ma aqaano qadka ka baxday laga yaabaa waxaa samaysaa waxaa samaynaysaa haddii aysan wax zaa'id lahayn oo maanta dhakhtar aad u tagtid oo aanan shaambo antibiotic oo kale aadan u baahnayn saliida olive oilka wax yar qandici madaxa inta 4 jid ka dhigtid oo kale dhaxda ku shub geeskan ku shub qaybtan ku shub kadib ku massage adiga 2 hours oo kale 2 saacadood oo kale ku daa intaad saas iskugu xirto shukumaan iyo wax yar saas dhab ugu sii afka ka xir tinta marka si fiican maqaarka waa inuu u qoyaa markii maqaarkii hoose oo tinta ka soo bixaysa markuu qoyo tinti waa fiicnaanaysaa marka kadibna shaambada aad ku dhaqanaysidna kadibna haddii shaambo cusbo ay tahay saliidii aad maanta dhamarinayso ku masaajeynaysaa macno ma samaynayso haddana maqaarkii wuu hoolayaa saliida marka shaambooyada sulfate free-ga oo kale waa raadsan kartaa okay waa maadsantahay hay adiga mudan Sahra waa maadsantahay dumarka waxaan dhihi karaa baahi badan ah barnaamijyadan loo qabaa oo kale mana kusoo koobmayaan hal mar iyo laba mar ilaahay khayr ha siiyo TV-gan waqti badan uu siiyay programkan aan markasta topigyada ugu muhiimsan ugu khatarta badan ee aadna aan ugu baahanahay haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed inaan idiin soo xulno si aan markaas iskula wadaagno waxaan hello salaam calaykum qadka telefoonka markaan hello salaam calaykum TV-ga wax yar hadda iska gaabisa hello salaam calaykum calaykum salaam walaashay walaal ku soo dhawo magacaaga meesha ka soo hadlaysid calaykum salaam adiga ilaadaysid gabadha أنا كلها ها ولا أنا كلها هذا ما قاعد ما شكسو هالليسي ما يوهم ولا يقف كلين إذا هالليسي ما حنقول ديها بحوالات غني بحمل عيق أم هاشم لندن كسورية أم هاشم أو لندن TV إسكا جابي هديك لو وقتي ما تلو إسكسور مقنا ها TV إسكا جابي هاي أم هاشم كسر دو ولا وحوا باي تنت مارك خليك فرط ما شاء الله كشكين ما شاء الله حط برجان وحيا أنا سوق جاري لكن وحوا دبعت هاي ست ما كانت محمرية تنتي وجهي أيوة عمامر حوا ما مري كرو سريد ما مري كرو سريد أولي ما مري كرو سريد هكذا حتى وحوا كريم ما مري كرو بس هذا تحقق كل هذا تريتمنت أو جس أو نفقة كانت المرينا وكذا قال سمرك هذا نسجن maxaa ka wadaa waxba ma marin karo ma fahmin ya waxba ma marin karo shaambo kuma dhaqi karo ma ka wadaa ha shaambo ma ku dhaqi karo shaambo ku dhaqi karo laakiin saliid ma marin karo hadda saliid barisan maxaa dhacayo wajiga wuxuu noqonaa cuncun wajiga cuncuna waa igu gubara wax madoobaad amriga noqonaa asagana waxaa sameynaysaa marka saliida marka hore ku hormari olive oil ko kale ku hormari kadib waxaa dhici karto shaambada amarsanaysid inay ku dhibayso marka shaambooyada kale u kala fiiri inay cusbada ku dhibaysaa dhici karta hadaa qallayl faro badan ay qabtid oo kale karatinka shaambada karatinka meel kasta lagu gadaa waa xoogaa waa yara qaali waa garan kartaa laakiin karatinka oo kale iyo sulfate free oo kale waa expensive waa walaal anaga xayisiinta markuu programka ka baxay ka bacdi xayisiinta soo galaysa ها موبايل كاسو كله برايفت أهان وأنا أقول صو حريري كرتا كدب أنا جاكو شرحنا ماش عن بيسكو كلنا هاي يصير وكو شرحنا وحي كوه هبون هذا ديليفر إيه نقطنا والجوسو ديليفر جرينا هذا إما كرتيد وكو شرحنا إن شاء الله. بس ما واحد من جبت ما أصبح واحد أمريكا ما سريد ودن ما يوح كلا قلدن سليد لكن سليد ودن معقول معها كمهن وقللا يعني مركب ما وصلت إيه قلني وصلت كويس ثابت هذه كذا إن شاء الله مركب إن قد كتلف إنه وصوق در إن تلفون أهان فيسبوك إنه وجري كرتا مركب وحي معلومات أماشان كحريرنا إن شاء الله تعالى وحنا أقوم هاد علنا يا برنامج كان وقعن وين كجست TV رويال
farsamo yaqaan Faisal oo si hagar la'aan ah ugu shaqeynayay barnaamijkan maanta waa u mahad celinayaa dhammaan intii qadadka teleefanada nagala soo qayb qaadatay waa u mahad celinayaa intii uu soo gali waayay oo na daawatay Facebook-ga YouTube-ka oo la soo galin doono intaasba waa ka daawan doontaan wixii macluumaad ah feedback ah waa isla shaqeynaynaa barnaamijkiini anigoo deeqaluul idin soo jeedinayay waxa idin kaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wallahu macana wa macakum ambiyoy wejigii adudnaa ishu aanay qabanaynin waa isagaan ifaayay amaahi hadalkoo sirta ayar ii sheeg oo maxaad isticmaashay oglow ishu may qabataa aragtidu ma wacan tahay iftiin ma iga baxayaa haa maxaad isticmaashay waxaan isticmaalay kareemooyinka asli beauty skin care weliba ku darso shirkadda asli beauty skin care waxa ay bilowday in adeegyadeeda dukaamadu ay ku qaadan karaan qaab jumlo ah si macaamiisha iyaguna ay uga sii iibsadaan dukaan walba ama dukaanka ugu dhow asli beauty skin care waa kareemooyin isugu jira nafaqo iyo vitamins waxayna ka caawinayaan waxyeelada dadka isticmaala kiimikada waxaa sidoo kale ka helaysaa make up foundation iyo nafaqo wajiga kaaga ilaalinaysa cadceeda qabowga iyo dabaysha oo loogu talagalay wajiyada Soomaalida xarumaha Muqdisho Hargeysa iyo Garowe waxa lagu soo kordhiyay qalab casri ah oo ay kamid yihiin kaamirada wajiga lagu eego oo ku tusinaysa dhibaatooyinka wajiga ku dhaca deeqaluula oo ah mulkiilaha kambaniga Asli Beauty Skin Care waxa ay macaamiisheeda ku soo dhaweynaysaa gacmo furan iyo waliba qiimo ku qancinaya waxaad sidoo kale ka helaysaa shaambo iyo after shaambo saliid iyo nafaqo iswata xarumaha kambaniga Asli Beauty Skin Care waxa ay ku kala yaalaan Muqdisho isgoyska Soobe ka soo horjeedka wasaaradda arrimaha dibadda Hargeysana ka soo horjeedka astaanta Xira Awr daarta Cimaaratul Baraka Nairobi waxay xarun ku leeyihiin wadada 12aad xarunta ganacsiga ee Madiina Mall xarunta weyn waxay ku taala magaalada London waxaana alaabaha looga diraa dadka jooga Yurub America iyo Australia waxaana magaalada Dubai ay kaga hirgelisay xarun weyn oo ku taala suuqa Soomaalida Al Ras dhabarka dambe ee Hotel Jazeera haddii aad ganacsado tahay ka faa'iideyso fursadan ay ku siisay Asli Beauty Skin Care adigoo la xiriiraya ciwaanada shaashada kaaga muuqda Asli Beauty number 1